naagtan ayaa naxdin la fajacday markii ay aragtay labadeeda carruur oo si kedis ah u miyir beelay kadib markii ay kabasho yar ka qaateen shaaha. ninkii isbitaalka lahaa ayaa si degdeg ah u raaligeliyey isagoo sheegay inuu ilaaway in carruurtu ay xasaasiyad ku qabaan lawska oo uu shaaha ku daray xoogaa laws ah. si lama filaan ah ilbiriqsiga xiga ninkiina isna wuu miyir beelay maadaama uu isaguna xasaasiyad ku qabay lawska. wuxuu bilaabay inuu ka shakiyo in labada carruur ay yihiin kuwiisa. markii uu soo miyirsaday wuxuu si degdeg ah u aaday qaybta carruurta. wakhtigaas haweenaydii waxay isku eedaynaysay inaysan si fiican u daryeelin carruurta. saaxiibkeed ayaa isku duubay oo si tartiib ah u dejinayay. ninkii ayaa goobta soo galay wuxuuna si masayr leh u kala dhex galay. wuxuu ku eedeeyey xaaskiisii hore inay sannado ka hor khiyaantay oo ay la carartay saaxiibkeedan. saaxiibkeed ma uusan u adkaysan karin aflagaadada wuxuuna ku sigtay inuu kashifo in ninku uu yahay aabbaha dhabta ah ee carruurta. laakiin haweenaydii ayaa joojisay. way u cafin kari weyday ninka inuu iyada iyo carruurteedaba dayacay. sidaas darteed waxay qabatay gacanta saaxiibkeed si ay u muujiso isku soo dhowaansho iyadoo si ula kac ah uga xanaajinaysa ninka si uu baxo. isla markaas dhakhtar ayaa ninkii u dhiibay warqad baaritaan aabanimo. markuu arkay inaysan carruurtu ahayn kuwiisa ninkii wuxuu sii hubsaday in xaaskiisu ay khiyaantay sannado ka hor wuxuu ogeyn in waxaas oo dhan ay qayb ka ahaayeen qorshe ay soo maleegtay haweenay kale. waxay mar hore laaluushtay dhakhtarka si uu u beddelo natiijada baaritaanka.